Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalkeena maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa dhacdo la yaab leh oo ka dhacday waddanka Ingiriiska bilowgii qarnigan aan hadda ku jirno. Sida ay la yaab u tahay darteed dhacdadan, maxkamadda Ingiriisku waxay qariyaan magacyada rasmiga ah ee dadka ay ku dhacday. Waxaan isticmaali doonaa magacyadii loo isticmaalay warbixinihii laga sameeyay dhacdadan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan idiin sheego dhacdadan boqolkiiba boqol waa dhacdo sax ah oo dhacday. Waxaa soo geli doona waxyaabo aadan aamini doonin, sidoo kalena u malay doonto inay been tahay, laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo boqolkiiba boqol waa dhacdo sax ah oo dhacday. Aan u galno muuqaalkeena maanta. 9kii Juun 2003 magaalada Manchester, laba wiil oo dhalinyaro ah oo mid lagu magacaabo Mark oo 16 jir iyo mid kale oo lagu magacaabo John oo 14 jir ayaa is soo raacay. Xoogaa waxay u soo baxeen inay soo socdaan oo soo luga baxsadaan. Waxyar kadib wuxuu ku yiri midkii weynaa Mark saaxiibkiis John, meel luuqa oo inta badan aan dad badan deganeyn, meeshaan aan soo fiirino nabixi. Meeshii ayay galeen. Waxyar kadibna waxay soo waceen booliska oo midka weyn ayaa soo wacay. Wuxuu ku yiri saaxiibkay John, nin ayaa midi ku dhuftay, ninkiina wuu cararay. Isla markiiba boolisku waxay la xiriireen ciidankii ugu dhawaa halka ay joogaan, waxaana loo soo diray ciidan. Waxyar kadib meesha waxaa soo gaaray laba nin oo boolis ah. Mid ka mid ah wuxuu isku dayay inuu badbaadiyo John, halka Markna uu tilmaamay halka ninkii uu ku cararay, kii kalena halkii ayuu daba orday bal inuu ninkii ka daba tago, laakiin waxba ma uusan soo helin. Waxyar kadibna waxaa goobta soo gaartay ambalaasta, waxayna ku guuleysteen inay John badbaadiyaan isagoo nool ay cisbitaalka u qaadaan. Booliskuna waxay bilaabeen isla markiiba inay wareystaan Mark. Markii ay weydiiyeen sida ay wax u dhaceen, wuxuu ku yiri waxaan soo galnay luuqa aniga saaxiibkay anagoo iska soconayna, kadibna nin dharka darbi jiif ku eeg wata oo midina wata ayaa nagu soo baxay. Wuxuuna midi ku dhuftay saaxiibkay, kadibna waa u cararay. Waxay booliska weydiiyeen Mark luuqa maxay ka soo dooneen markii hore. Wuxuu ugu jawaabay waxba kama aanan soo doonin markii hore, macni sabab rasmi ah oo luuqa u soo galnay ma jirto, laakiin waxaan jeclaysanay oo kaliya in bal wixii gudaha ku jira aan soo fiirino. Boolisku waxay ka shakiyeen hadalka Mark, maxaa ku kalifaya in uu soo weeraro nin dhalinyaro isagoo waxba aan weydiisan, sidoo kalena isagoo isku dayin inuu wax ka dhaco midi ku dhufto kadibna uu iska tago, sababtoo ah dhalinyaradan waxba lagama dhicin. Boolisku waxay ka shakiyeen in Mark marka wixii meesha ka dhacay uusan runta ka sheegayn. Tallaabada labaad ay qaadeen boolisku waxay ahayd inay raadiyaan wax kaamirad ah oo luuqaas ku xiran. Luuqan wax kaamira ah kuma aysan xirreyn, laakiin waxay ku xirreed guryaha u dhow meesha laga soo galo luuqa iyo halka looga baxo. Muuqaaladii markii ay dib u fiiriyeen waqtigii ay dhacdadu dhacday, waxay ka dhex heleen muuqaal ay ka dhex muuqdaan Mark iyo John oo luuqa sii galay, laakiin waxay ka waayeen wax nina oo luuqa galay ama ka soo baxay, xataa qof aan ayaga ahayn oo luuqa galay ama ka soo baxay oo kaamiradu duubtay ayay ka waayeen. Isla markiina waxaa ku sii kordhay shakigii ay ka qabeen Mark oo ah inuu been sheegayo. Shakigoodana siima uusan daba dheeraan oo John oo badbaaday ayaa dhowr maalmood kadib soo kacay, isaga ayaana u sheegay dhacdada saxda ah. Wuxuu ku yiri aniga iyo saaxiibkay Mark ayaa is soo raacnay. Markii aan soo gaarnay luuqan wuxuu igu yiri saaxiibkay luuqan aan soo fiirino bal wixii ku jira. Anna kuma aanan diidin oo wax shaki kama qabin, waxaan isiri bal adna soo arag bal wixii luuqa ku jiro. Markii aan luuqa soo galnay anigoo ka horeeya oo luuq kale barka aan marayno, saaxiibkay Mark garabka ayuu iga qabtay, kadibna uu isoo jeediyay. Markii uu isoo jeediyana wuxuu igu dhuftay midi, isagoo ila saaxiibkay raalli ahaw, haddii arrinka siduu wax u jiraan aa ogaa lahayd waa i fahmi lahayd. Markaas kadibna waan sooxay, wixii intaa kadib dhacana war uma aanan hayn. Isla markiiba boolisku waxay soo qabteen Mark. Markii ay weydiiyeen wixii dhacayna, isla markiiba waa uu qirtay inuu isagu saaxiibkiis midi ku dhuftay. Wuxuuna ku yiri aaway Janet, iyada ayaa wax walba idin sharxi doonta, waxay ahayd inay joogto Janet. Boolisku isla markiiba arrinkiisa way la yaabeen, waxayna ku dhaheen yay tahay Janet. Sidoo kale waxay ku yiraahdeen waa inaa isdejido sheekadaadana min bilow ilaa dhammaad aan nala wadaagto si aan u fahanno Janet iyo waxa aad ka sheekeynaydo. Wuxuuna la wadaagay sheekadan cajiibka ah. Dhacdooyinka la yaab kale ee sheekadan waxay ka soo bilaabanayaan bishii February ee isla sanadkaas 2003. Mark wuxuu ahaa wiil 16 jir oo ku nool magaalada Manchester. Wuxuu ahaa arday, sidoo kalena wuxuu ka shaqayn jiray maqaayad oo wuxuu u dhaqi jiray alaabta ayuu ka shaqaysan jiray. Wuxuu ka aruuri jiray lacagta uu ka shaqaysto. Sidoo kalena waxay ahaayeen qoyskiisa qoys yar oo iska degan oo ku nool magaalada Manchester. Markii muddo uu ka shaqaynayay maqaayadda, xoogaa lacagana uu isku aruursaday, wuxuu awooday inuu ugu dambeyn iibsado laptop.
markii uu soo iibsaday laptopkana wuxuu bilaabay inuu dhex dabaasho caalamka internetkana waxay ahayd xilligaas xilligii uu bilowga ahaa oo dunida ku faafayay. Waxyaabaha ugu badan ee dhalinyaradu ka sameyn jireen waxay ahayd inay qolalka wada sheekaysiga galaan. Xilliga Facebook iyo YouTube iyo TikTok iyo ma jiri jirin. Waxyaabaha ugu badan ee dhalinyaradu ay waqtigooda ku qaataan waxay ahayd qolalka wada sheekaysiga. Mark wuxuu bilaabay inuu qolalkaas galo, wuxuuna sidoo kale galay qol ay leeyihiin dhalinyarada ku nool magaalada Manchester. Markii hore ma uusan ahayn xubin firfircoon, marmarka qaar ayuu gali jiray kadibna uu ka sheekaysan jiray. Waqtiga uu firaaqada leeyahay ayuu gali jiray, laakiin muddo kadib wuxuu noqday mid waqti badan ku qaata, sidoo kalena dad badan la sheekaysta. Ugu dambeyn wuxuu ka bartay groupka gabar lagu magacaabo Rachel iyadana waxay ku nooshahay magaalada Manchester, waana da'diisa oo kale gabar jirta oo 16 jir ah. Waxay bilaabeen markii ay muddo ka sheekaysteen groupka, markay ka dhex sheekaysteen in wada sheekaysi gooniya labadooda ay furtaan, halkaas ayayna si fiican isugu barteen. Waxay bartay iyaduna muddo kadib wiil kale oo lagu magacaabo John waa 14 jir, waana midkii uu midida ku dhuftay. John isagu wuxuu ahaa mid ka duwan Mark. Isagu waqti badan ayuu ku qaadan jiray qolalka wada sheekaysiga. Dhanka familkiisa ama qoyskiisa, aabihii lama yaqaano, hooyadiina waxaa qabay nin kale. Inta badanna hooyadii iyo aabihii, ama aan dhahay ninkan hooyadii qaba, waxaa ka dhexay jiray khilaafkaas qoyska ka jira darteed. Mark si uu isku ilowsiiyo wuxuu aad waqti badan ugu qaadan jiray xataa habeenkii qolalka wada sheekaysiga. Dhinaca kale Rachel iyo Mark xiriirkoodu aad iyo aad ayuu mar walba marka ka dambeeyay u sii adkaanayay. Ugu dambeyn waxay gaareen inay masawirro isku soo diraan, oo isaguna masawiradiisa u diro, iyadana ay masawiradeeda u dirto. Saddexdooda, Mark iyo John iyo Rachel, inta badan saddexdooda ayaa sheekaysan jiray. Sida caadada ahna waxay ahayd John iyo Mark markii ay wada sheekaysanayaan saddexdooda kaamirada ayay furi jireen, laakiin Rachel iyadu mar walba way ka cudur daari jirtay oo kaamirada ma furi jirin. Mar waxay dhihi jirtaa kaamiro ma hayo, mar waxay dhihi jirtaa dhaqaale ma hayo aan kaamiro ku iibsado. Markna mar walba wuxuu ku codsan jiray inuu arko. Ugu dambeyn waxay ku tiri kaamirada iyo waxaas iska dhaaf, waxaan kuu sameynaa wax ka fiican, ka waran haddii aan labadeena kulanno. Aad ayuu ugu farxay Mark, waana ay ballameen. Markii ay meeshii ay ku ballameen, Mark uu tagay 1 saac ayuu fadhiyay isagoo arag wax Rachel ah. Wuxuu isaga soo laabtay guriga, wuxuuna ku soo laabtay wada sheekaysiga. Markii uu weydiiyay maxay imaan weydana, way u cudur daartay. Waxay ku tiri qoyskayga dartiis ayaan u imaan waayay. Isaguna waa uu ka aqbalay. Mar kale ayay ballameen, markaana Mark ayayse u suurtagelin inuu goobta tago. Muddo kadib haddana way ballameen, midkood ayaa haddana cudur daartay. Adigu dhowr goor markay ballameen, marnana ay u suurtageli weyday inay isku imaadaan. Ugu dambeyn waxay go'aansadeen inuu xiriirkoodu wada sheekaysiga internetka oo kaliya ka socdo, isku imaashahana ay iska iloobaan maadaama ay u suurtageli weyday. Sidaas ayuuna mar walba marka ka dambeeyay xiriirkoodu ku sii xoogaysanayay. Dhanka kalena Mark iyo John waxay noqdeen saaxiibo dhaba, iyagoo xataa ilaa hadda is arag. Xiriirkoodu wuu sii xoogaysanayay mar walba marka ka dambeeyda. Hal bil kadib isbarashadooda waxaa soo galay qolkan wada sheekaysiga xubin cusub, waxaa lagu magacaabaa Kevin wuxuu la wadaagay dadkan ku wada sheekaysanaya groupka inuu yahay stalker waa qofka dadka daba kackaca oo macluumaadkooda barbaara si uu u dilo ama uu afduubto. Laakiin cidna muhiimad ma aanay siin hadalka Kevin. Waxay islahaayeen waa cunug yar oo doonaya inuu nafsadiisa magac u sameeyo ama inuu ka dhex caanbaxo groupka. Maalinkii ku xigta Mark markii uu soo galay groupka, wuxuu arkay fariin gooni ah oo loo soo diray. Fariinta waxaa u soo diray Kevin wuxuu ku yiri Mark, waan ogahay inaad tahay jacaylka Rachel ama qofka uu xiriirka kala dhaxeeyo Rachel. Waxaa ogaataa inay aniga ii afduuban tahay. Haddii aadan sameeyna waxa aan ku amro, waxaa ogaataa inaan dili doono, intaan kufsado kadibna aan dili doono. Isla markiiba Mark wuxuu la xiriiray saaxiibkiis John wuxuu ku yiri laga yaabay in hadalka Kevin uu run yahay, sababtoo ah maanta ma aanay soo galin Rachel groupka, caadana uma aysan ahaan jirin. Oo sida caadada markii ay labadan soo galaan Mark iyo John, iyaduna waa ay soo gali jirtay. Laakiin wuxuu ku yiri John, Mark waa inaan sugnaa waqti aan siino. Waxay sugeen 1 saac, 2 saac, 3 saac, mana aysan soo galin Rachel. Ugu dambeynna wuxuu aaminay Mark in Kevin waxa uu sheegay ay run tahay. Kevin ayuu wuxuu u diray fariin, wuxuuna ku yiri waa ogolahay waxa ay amrayso, laakiin waa inaadan dhibaateen Rachel. Kevin wuxuu ku yiri Mark waa inaad kaamirada furtaa. Kadibna wuxuu amray inuu sameeyo waxyaabo akhlaaq ahaan aan wanaagsanayn. Markna waa uu sameeyay. Markii ay dhameysteen, Rachel waxay dib ugu soo laabatay groupka. Markna wuxuu weydiiyay xaaladeeda.
waxay ku dhahday waa ogahay wax walba oo aad dartay u sameeyday waan mahadsantahay. Waxaan doonayaa si aan kuugu mahad celiyo in aan labadeena kulanno. Laakiin markaana uma aysan suurtagelin oo sidii hore oo kale ayaa ku dhacday. Mark markii uu meeshii tagay 1 saacna uu joogay, Rachel uma aysan imaan. Markii uu ku soo laabtay guriga, haddana mar kale uu qolkii wada sheekaysiga galay, ma uusan ka helin Rachel. Maalinka wixii ka dambeeyana mar dambe ma aanay soo galin Rachel. Maadaama Rachel ay meesha ka baxday, Mark iyo John waxay noqdeen labadooda oo kaliya. Arrinkaasoo keenay in saaxiibtinimadoodii ay sii kororto. Ugu dambeynna labadooda waa ay kulmeen oo waa ay is arkeen. Muddo 1 bil kadib waxaa soo galay groupka gabar cusub, waxaana lagu magacaabaa Janet. Janet waxay fariin u soo dirtay Mark waxayna ku tiri, waxaan ahay haweeney 2 cunug la xaasna ah, laakiin noloshaydaas waxay dah u tahay oo lagu qarinayaa qofka rasmiga ah oo aan ahay. Waxaan ahay qof ka tirsan ciidanka sirdoonka waddanka Ingiriiska. Waxaan ahay haweeneyda saddexaad ee ugu awoodda badan waddanka Ingiriiska. Waxaan doonayaa inaan kugu daro ciidanka sirdoonka. Haddii aad ku biirto ciidankan waxaa heli doontaa dhaqaale badan. Anigana waxaan noqon doonaa saaxiibtaada cusub. Hadalkaas ma aha hadal uu qof caqli la aamino, laakiin wuxuu iska ahaa Mark wiil yar oo dhalinyaro ah, sidoo kalena aan caqli badnayn. Ugu yaraanna ma jirin haddii uu aqbalo wax uu khasaarayo, sidaas darteed waa uu aqbalay. Waxayna ku tiri maadaama aad aqbashay, waa inaan ku geyno magaalada London si aan tababarka kuugu bilowno. Markii aad halkaas tagtana waxaa la kulmi doontaa madaxa sirdoonka, sidoo kale waxaa la kulmi doontaa ra'iisul wasaaraha, waxaana la kulmi doontaa sidoo kale boqoradda waddanka Ingiriiska. Wuxuu ku yiri sidee ku tagayaa London ama waalidkay sidee ugu sheegi doonaa inaan London aadayo. Waxay ku tiri ha ku wareerin arrinkaas, annaga ayaa waalidkaa la wadaagi doona waxaas oo dhan. Wuxuu ku yiri okay diyaar ayaan ahay, laakiin goormee baxaya? Waxay ku tiri markii howlo aan kuu diri doono oo tijaabo ah aad ka gudubto ayaa London ku gey doonaa. Hadda dhowr shaqo oo tijaabo ah ayaan kuu diri doonaa, waa inaad ka gudubto si aan kuu geyno London. Waa uu aqbalay Mark. Janetna waxay bilowday inay Mark u sheegto maxay isaga u doorteen. Qofka ay doorteen maxaa isaga ka dhigay. Waxay ku tiri waxaan ognahay inaad saaxiib la tahay John. John waa qof u muhiima waddanka. Magaciisa rasmiga ahna waxaa la yiraahdaa James Bell oo John ma ahan. Mana kuu sheegi karo hadeertaan muxuu John u yahay qof muhiima. Waxaan kuu sheegi doonaa marka aad tijaabada koowaad ka gudubto. Mark wuxuu ku yiri okay waa ogolahay, maxay tahay tijaabadeyda koowaad oo maxaad iga doonaysaa inaan kuu sameeyo. Sidoo kale waxay bilowday Janet inay u sheegto macluumaad ku saabsan isaga iyo John. Macluumaadkaasoo uusan ogaa karin qof iyaga shakhsi ahaan yaqaana maahane. Arrinkaasoo keenay inuu si fiican ugu qanco Mark in Janet ay run sheegaydo, sidoo kalena ay tahay qof ka tirsan sirdoonka. Waxay ku tiri Janet waxaan kaa rabnaa berri inaad raacdo John ama James Bell. Wuxuu leeyahay dhakhtarka ilkaha iyo wuxuu leeyahay balan. Waxaan kaa rabnaa inaad waardiyeydo. Waxaan doonaynaa inaan ogaano inaad qof waardiyey karto. Wuxuu ku yiri Mark John wuxuu berri leeyahay balan dhakhtarka ilkaha. Waxay ku tiri haa, marka aad u tagto ama aad la kulantana arrinkaas isaga ayaa ku xaqiiji doona. Mark maalinkii ku xigtay maalinkaas wuxuu aaday iskoolkii John. Wuxuuna u sheegay maamulka iskoolka inuu u baahan yahay John. Wuxuuna ku yiri John wuxuu balan la leeyahay dhakhtarka ilkaha. Maamulku waxay u yeereen John, kadibna waxay weydiiyeen hadalka uu sheegay Mark inuu sax yahay. Wuxuuna ku yiri waa sax. Waxay waceen hooyada John. Iyaduna waxay u xaqiijiday maamulka iskoolka in wiilkeedu uu run sheegayo oo uu balan leeyahay dhakhtarka ilkaha. Waxayna ku tiri waxaan doonaynay inaan dib u dhigno. Maamulka waxay ku dhaheen waxaan la jooga saaxiibkiis Mark. Hooyadiisna John waa ay ogeed in Mark iyo John ay saaxiibo yihiin. John hooyadiis waa ay ogolaatay maadaama Mark uu ahaa qof ka weyn John. Markii ay soo baxeen John wuxuu weydiiyey Mark sidee ku ogaatay maanta inaan balan la leeyahay dhakhtarka ilkaha. Wuxuu ku yiri hadda kuma sheegi karo, laakiin maanta waa ku ilaalin doonaa, adiga ayaan ku raaci doonaa. Way israaceen waxay tageen dhakhtarka ilkaha. Markii ay ka soo dhamaadeenna waqti ay xoogaa isla qaateen, kadibna wuxuu Mark gurigiisa dib ugu celiyay John. Markii uu Mark guriga dib ugu soo laabtay, wuxuu isla markiiba galay qolkii wada sheekaysiga. Wuxuuna la kulmay Janet oo sugayda. Wuxuu ku yiri shaqadii koowaad si guul leh ayaan u qabtay. Waxay ku tiri Janet waa ognahay inaad ku guuleysatay. Maanta oo dhan waxa ku daba joogay sirdoonkeena. Sidoo kale waxay bilowday si ay ugu xaqiijiso inay u tilmaamto meel kasta oo ay tageen, wax walba oo ay sameeyeen maalinkii iyo sidoo kale xataa dharkii ay wateen. Arrinkaasoo keenay in Mark 100% oo ku qanco
in Janet waxa ay sheegaydo ay dhab yihiin. Sidoo kale waxay ku tiri Janet, darawalada basaska iyo dadka caadiga ah oo la kulanto iyo kuwa dukaamada iibiya waxaasoo dhan waa sirdoon. Waxayna ka dhaadhicday Mark in cid walba ay tahay sirdoon. Laakiin waxay ku tiri adiga waxaan doonayaa inaan kaa dhigo midka ugu awoodda badan uguna dhaqaalaha badan, kadibna aan noqdo saaxiibtaa. Hadalladaasna waxay doonayday inay ku qabsato maskaxda Mark. Mark isaga dhankiisu wuxuu aaminsanaa wax walba ay Janet u sheegto 100%. Sidoo kalena wuxuu diyaar u ahaa inuu sameeyo wax walba ay u dirto si uu u xaqiijiyo riyooyinkaas tirada badan ee u sheegaydo Janet. Kadib waxay ku tiri Janet, Mark, maadaama aad ka gudubtay tijaabadaadii koowaad oo aad ku guuleysatay muhiimadaadii koowaad, hadda waxaan awoodaa inaan kuu sheego saaxiibka John ama James Bell muxuu u yahay qof muhiim ah. Waxay ku tiri waxaa jira qasnad weyn oo macdan ka samaysan oo badda hoosteeda ku jirta. Qasnadaasna waxaa og dowlado yar oo keliya, waxayna ka kooban tahay 100 milyan oo ka mid ah dhaqaalaha boqoradda. Saaxiibka James Bellna waa furaha keliya ee qasnadaas. Ma jirto qaab loo furi karo ilaa in jirka James Bell la helo oo meeshaas yaallo oo qasnadaas horteeda la geeyo maahane. Sidaas darteed waxaan kaa rabnaa in maalin kasta aad la socoto John, sidoo kalena aad u noqoto waardiyihiisa rasmiga ah oo kale. Maalin walba oo aad muhiimadaada ama shaqadaada ku guuleysatana lacagtaada way kordhaysaa. Marka xaaladaas wuxuu ku jiray dhowr bilood. Intii uu sidaas ku jirana mar walba waxay u direeday shaqooyin yaryar ilaa laga soo gaaray 28 Juun 2003. Maalinkaas waxay ku tiri Janet, Mark, berri waxaa qaban doontaa shaqadaadii ugu dambeysay ka hor inta aan lagu soo wareejin London si rasmiyana aadan u noqon xubin ka tirsan hay'adda sirdoonka Ingiriiska. Laakiin shaqada aad qaban doonto berri waxay noqon doontaa mid ka adag dhammaan shaqooyinkii hore aad u soo qabato oo dhan. Wuxuu ku yiri Mark isagoo oo xamaasadaysan, ii sheeg maxay tahay? Waxay ku tiri waa inaad dishaa John. Isla markiiba wuxuu ku yiri sabab? Waxay ku tiri saaxiibka xaaladiisa mar walba marka ka dambeeyda xaaladiisa caafimaad dabcan mar walba marka ka dambeeyda way sii xumaanaysaa. Inkastoo uu arrinkaas ka muuqan, laakiin baaritaankeenu wuxuu noo cadeeyay in uu qabo cudurka kansarka. Kansarkaasna uu marna u geeriyo doono wax badan aysan u dhineen. Waxaan ka cabsanaynaa in arrinkaas ay ogaato dowlad ka mid ah dowladaha oo qasnada boqoradda, kadibna ay jirkiisa qaataan, sidaasna ay boqoradda lacagteeda ku qaataan intay qasnada furtaan. Inagu waxaan doonaynaa inaan kaga hormarno oo u degdegno. Waxaan ka rabnaa sidaas darteed inaad disho, kadibna waxaan doonaynaa inaan jirkiisa aan kaydino, sidaasna aan ku badbaadino qasnada boqoradda. Sidoo kale waxay ku tiri Janet, berri markii arrinta fulido booliska imaan doona ayaan soo raaci doonaa anoo dharka booliska wata, lagumana xiri doono aniga ayaa meesha kaa kaxay doona sababtoo shaqada qaban doonta aniga ayaa og. Isla markiiba Mark kuma uusan qancin, laakiin Janet kama aysan harin ilaa ugu dambeyn ay ku qanciday inuu arrinka fuliyo. Maalinkii ku xigtay ee 29 bishii June 2003 waxaa dhacday dhacdadii aan ka soo hadalnay ee ahayd Mark inuu ku dhuftay toorey saaxiibkiis John. Kadibna John uu sheegay qofka midida ku dhuftay inuu Mark yahay, Markna ay soo qabteen. Mark isagu Janet dhab ayay ka ahayd, si dhab ayuuna u raadinayay. Booliskuna waxay arkeen inay ninkan dhab ka tahay waxa uu sheegayo, kadibna waa ay xireen. Isla markiiba waxay tageen gurigiisa waxayna soo qabteen laptopkiisa. Markii laptopka ay baareen, sidoo kalena ay isbarbar dhigeen dadkii uu la hadli jiray, waxa uu cadaatay ciidanka in 3 qof oo ka mid ah dadkii uu la hadli jiray ay hal qof isku yihiin, waa Rachel, Janet iyo Kevin. Waxayna ku cadeeyeen ereyga maybe. Waxaa loo qoray ereygan sida idinkaga soo bixi doonta shaashada. Laakiin 3dan qofba waxay u qori jireen isku hal nooc. Waxay u qori jireen maybe sidaan shaashada idinkaga soo bixi doonta. 3 qofna waxaa isku ahaa hal qof oo keliya, waa saaxiibkiis John. Arrinkaasna waxay ogaadeen markii laptopka John isagana ay soo qabteen oo ay baaritaan ku sameeyeen. Waxa uu soo baxday in dadkaasoo dhan uu iska dhigay John. Meesha wax Rachel lera ma jirin, Kevin ma jirin, Janetna ma jirin. Shakhsiyaadkaasoo dhan waxaa iska dhigay saaxiibkiis John. Sidoo kale waxa uu soo baxday in groupka ay ku wada jireen waxa shakhsiyaad ku jiro oo dhan uu shakhsiga saxda ah uu ka ahaa kaliya ninkan lagu magacaabo Mark. Inta kale ay bug ahaayeen marka laga reebo John. Waxaan soo dhacayay oo dambi baarista iyo gabadha la afduubtay, waxaasoo dhan waxaa ka dambeeyay oo qorsheeyay John. In la dilo xataa oo midi lagu dhufto isaga naftirkiisa ayaa soo qorsheeyay. Markii John ay weydiiyeen
isla markiiba waa u qirtay isaga maadaama kombiyuutarkiisa ay gacanta ku hayaan, waxaana la soo taagay maxkamad. John waxaa lagu eedeeyay inuu isagu qorsheeyay oo ka dambeeyay dilka nafsadiisa, wuxuuna ahaa xukun aana weligeed qofna aana loo qabsan. In qof loo qabsado inuu qorsheeyay sidii isaga loo dili lahaa. Sidoo kale Mark isagana waxaa lagu eedeeyay isku day dil, laakiin maadaama dhacdadan wareerkeedu uu batay, sidoo kalena ay labada dhalinyarada ay ahaayeen kuwa qaangaarka ka yar, yacni markii qaangaarka gaalada loo fiiriyo oo 18 waxaa lagu xukumay in labadoodaba internetka hal sano aysan geli karin, sidoo kalena indhaha lagu hayn doono. Sidoo kale waxaa lagu xukumay in labadooda aysan is arki karin noloshooda inta ka dhiman, sababtay doontaba ha ahaatee waxay isku arkaan. Laga yaabay hadda inay isweydiinayso su'aal, maxaa keenay John inuu qorsheeyo in isaga la dilo? Ilaa maanta ma jirto cid taqaana sabab rasmi ah oo ka dambeeyay John inuu qorsheeyo sidii lagu dili lahaa. Inkastoo dhakhaatiirta cilmi nafsiga ay sababo sheegaan, laakiin ma jirto sabab rasmi ah. Laga yaabay in qisadan xogaa wareer ay ku keentay. Haddii aad doonaydo inaad macluumaad intaa ka badan ka ogaato, waxaa ka baari kartaa Google-ka adigoo ku baaraya Mark and John chat room. Sidoo kale waxaa jira filim laga sameeyay oo lagu magacaabo You Want Me to Kill Him. Muuqaalkani maanta intaas uu ku egyahay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa amaana Allah.